كتاب الله أحيانا وبالتوحيد أوصانا ففي قرآننا نور يضيء ظلام دنيانا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وعشركي لحدانية الضباط قيبتي اللباد لسيد أبدك برنامج كيني بربارين تأبدك وحاين سور لسيني وحاين كسو تشيرني سيابها مركا أبدك الله لسو شعور تودا مركا قيبت قدها ما أنت وحين قادم دونا أساس كصدحات أما قيبت الصدحات وحوية الهدايا والعضايا للأطفال. وبدخين مركا لسيو أو كانوا هديدو كلا دودوان مركا وحلا يراهدا قفك بني آدم كأه وحيابها مرتئات كأصامية أمرات كوناكسن في عن كرابة نفتيسة وحكمده هديدها إن قفك الله كانوا weliba waxa la yiraahdaa markay ubadka yaryar yihiin saamaynta yaraadka ay ku yeelanaysa aad bay tawaamahay dadka waaweyn ay uga sii duwan tahay marka nabiguna waa maxay saasu marka inoo sunneeyay oo wuxuu marka inoo jideeyay inay marka keenayso macnaha jacayl dadka marka dhexdooda ah watuulaha nabigu tahaadu tahabu macnaha waxay soo hadiyeeya si marka waa maxay ay isu jeclaataan kaasina waa maxay waa qaanuun marka caam ah oo guud weeye marka rasuulku hadalka uu yiri toos ayuu marka waa maxay inoogu cadeeyay oo isagoo camaliya oo practicalki ah ayuu marka xadiiska uu soo saaray imaam muslim ee warinaya abi hurayra ayaa waxa uu leeyahay macnaha nabiga marka xilliga midhaha ama khudaarta beeruhu marka ay soo go'aan ayaa marka waa maxay markay saa u soo go'do ayaa marka loo keeni jiray kadib waxyaabaha marka loo keeni jiray waxa kamid ah hadiyad ahaan oo kale midhaha iyo sidoo kale waa maxay inay ogaadaan zakada inta maxay midhahan ay ka gudayso ama inta lagu yeelanayo marka nabiga loo keeno waxyaabo oran jiray waxa kamid ah Allahumma barik lana fi madinatina wa barik lana fi thimarina wa fi muddatina wa sa'ina barakatan ma'a baraka. أنا حيوان إلهي ومحمد دينا ذي أما مقالة ومحي إلهي مركا نو بركي ومحد الدعوين كيف رهب بدنا النبي إبراهيم كنت عايزين شري أي نبي محمد مقالة وقد عين شري مركا شذوك لوا محمدها يحياها مقالة كسر بحينا إلهي مركا نو بركي إسلام مركا أنا واحد نو بركي سا وحيابها أشياء أما ومحي الشيء اللي هو ميزان مركا مدك لو يقانو أما الساعة مركا حلقة ومحي الحجاز ay isticmaali jireen marka hadiyadaha marka loo keeno nabigu waxa uu sameyn jiray xadiisku waxa si raacsan thumma yu'dihi asqara man yahdurhu min alwildan marka ubadka inta qofka ugu yar ee marka halka la fadhiyo ayuu marka siin jiray marka hadiyada iyo waxyaabaha fiican ee marka loo keeno ubadka yar la jooga ayuu marka nabigu waa maxay u siin jiray calayhi salaatu wassalaam. hadaba qaybtan hore ee banaa 10 waxaan ku soo koobinaa laba qodob. qodobka ugu horeeya waxa weeye ubadka sayn ugu doodana horta marka hore hadiyada hadaba baanta in ubadka hadiyad u keentid ama aad kaga farxisid oo kaad xusoo qaadid sida ugu dooraysaa marka qaybta labaadna waxa weeye waxaad u soo dooraysaa maxay noqon doonaan marka intee qaybad bay noqon doonaan marka hadaynu qaybta hore ku soo horeyno waxyaabaha wax la yiraahdo ubadka loo doorayo waxa ugu muhiimsan ilaa maxay in loo kala qaado 3 ilaa 4 marka kooda waxa la eegayaa horta ilmaha waxa eegaysaa da'diisa iyo age-kiisa iyo maxay umriga uu ku jiro marka hadii waxa ilmaha taraan uu da' yar oo ku jiro kala saahan 2 sano oo kala meelaha uu aad u yar yahay oo kale waxa loo soo qaadaa waxyaabo waa maxay uu ku ciyaari karo isla markaana waa maxay ka saacidaya inuu ku kala barto oo ku kala barto waxyaabaha waa maxay dashayada marka sabab maxay midabadii oo kale magacyadii oo kale xayawaanada magacyadoodii oo kale waxyaabaha si u kala saaro kan inuu xayawaan yahay kan waa maxay inuu midab yahay oo kale kan inuu magac yahay waxyaabaha ku saabsan baa loo keenaa
waxa la markay inta soo dhaafaan oo ay 5 iyo 6 iyo 7 iyo 8 iyo 9 meelaha marayaan marka isaga la yiraahdo waa maxay wuxuu isagu de rabitaankiisa ah ayaa marka la yar weydiyaa wuxuu rabo inta badan waa maxay ka saddexaadna waxa weeye qodobka labaad waxa weeye cinda tafkiiri bi shara'i hadiyati الطفل in marka iyadana waa maxay de laga fakero oo la isweydiiyo ilmaha hadiyada loo keenayo ama waxaan loo soo qaadaya maxay noqonaysaa marka waayo ubadka dabeecadahooda iyo waxay rabaan ayaa kala duwan waxa laga yaabaa ubadka qaar waa maxay inay ihtimaam waa maxay ama ay jecel yihiin inay marka wax qoraan ama wax sawiraan ama waa maxay waxyaabo noocaas oo gacanta ka shaqeeyaan kaasoo kale waxyaabo uu ku farbarto ama wax ku qorqoro ama tirooyin uu ku sameeyo oo kale marka loo soo qaadayo ubadka qaar waxa laga yaabaa maxay inay jecel yihiin inay wax iska akhriyaan qiraa'ada readingka waxyaabaha ay sameeyaan kaan waxa loo soo qaaday waxyaabo yar oo ciyaar ah laakiin waa maxay de akhris ku dhex qoray markaas waxa uu akhriyo qodobka saddexaad waxa weeye cinda shiraa'i hadiyati الطفل waxa iyaduna aad ka muhiimka ah waxa weeye marka de loo soo iibinayo wax ilmuhu ku raaxaysan karo waa maxay oo de uu jecel yahay oo marka loo keeno uu ku farxayo ama uu ka helayo marka macnaha maxay uu aad u rabo marka dabata saddexaad ta afraad waxa la yiraahdaa marka la joogo dhinaca hablaha oo kale ama dhinaca inamada way kala duwan yihiin oo hadii inamada oo kale waxyaabaha marka de ay aadka u jecel yihiin ama inay ku ciyaaraan ama inta badan loo keeno jecel yihiin maadaama isagu de nin uu yahay waxa kamid ah macnaha wax adag oo kale ama wax adag ka samaysan baabuurta iyo inay halkeen amraad qoryaha iyo waxa jecel yihiin waxyaabaha in loo keeno rag marka waxay jecel yihiin dumarka oo kale iyaga wax jecel yihiin marka in loo keeno waxyaabaha gacmaha la gashado oo kale ama gacmaha lagu xidho ama waa maxay marka jikada laga shaqeeyo waxyaabaha maryaha la xidho oo kale waxyaabaha iyo waa maxay maryaha waa maxay dad dumarka amiirada oo kale waxyaabaha xidhaan oo kale waxyaaba noocaas marka adigu dumar dhinaca ragga marka la eego iyo dhinaca dumarka wana isku waxaan markasta baan u soo qaadin waayo de waxyaaba ilaahay qof ku kala abuuray iyo marka kala duwan ninka kale de wax dagaalamaya iyo waxyaabahaas markasta waa maxay ku fakaraya marka maskaxdiisa ku jira marka isaga baabuur waxyaabahaas marka u keenaysa dumarkana waxyaaba iska caadiya iyo marka aad u soo qaadaysid marka taasi waa qodobka hore marka sida marka ubadka aynu ugu dooreyno waxyaabaha loo soo qaadayo marka hadiyada looga dhigayo qodobka labaad waxa weeye isagu aan ka waramayna maanta afkaadu ikhtiyari hadaya al-atfal waxa la yiraahdaa de waxaan ubadka u soo qaadaysid aad doonaysid in wax ka akhristo ama uu ku ciyaaro ama uu eego waxbay xambaarsan yihiin qaar waa maxay wax gaar ah loogu tala galay marka iyagana waxa la yiraahdaa afar baa loo qaybiyaa ama wax ka sii badanba ka koowaad waxa weeye in loo soo qaado hadaya thaqafiya ubadka waxaan u soo qaadaysaa waa inuu yahay waa maxay wax ubadka maskaxdiisa iyo maankiisa iyo shucuurtiisa maxay kor u qaadaya marka oo kordhinaya oo hadii waa maxay aqoontiisa iyo garaadkiisa marka waa maxay aad u kobcinaya haday akhriskiina waxyaabo yar ku akhrisan karo farti ka arki karo qodaal ka arki karo waxyaabaha ay u kala duwan yihiin oo dhan ka arki karo dhinacna waa maxay ku ciyaari karo marka ayaa la yiraahdaa laba waxa la yiraahdaa hadiya wax kamid ah waa la yiraahdaa kuwa marka tacliimiya oo tusaalahaan de ubadka kale waxa laga yaabaa in markuu yar yahay oo kale dhinaca xifdiga oo kale ama dhinaca akhriska oo kale wax akhriya waa maxay inay ku adag tahay ama uu diidayo oo kale ama waa maxay nacab yahay oo kale kuwaas kale waxa la yiraahdaa markastaba hadiyadaha loo keenayo ama loo soo qaadayo waa inay noqdaan kuwa marka wax barasho uun ah marka kuwa wax barasho uun waa maxay uu ka dhex arkaya marka kuwa dana maxay ciyaartii marka u ah waa dhinaca marka iyagana tacliimiga kuwa saddexaad waxa la yiraahdaa waxa kamid ah hadiya marka tarfiyo waa kuwa marka iyaguna waa maxay loogu tala galay ilmaha waa maxay in abaalgud looga dhigo wasahan wax fiican buu sameeyay oo kale ama wax uu ka soo qabtay oo kale in marka waa maxay iyagana waa maxay si hadiyad ahaan inta loogu soo qaado macnaha looga dhigo wax ma maxay abaalgud marka waxyaabaha kale si caawiye waxa kamid ah la yiraahdaa de hadii meel loo kaxaynayo oo kale ama haduu jecel yahay in meel loo kaxayo in loo kaxayo haduu maxay rabo in mariyo loogu abaalgudo oo kale maxay in marihi waa maxay loo keeno taasina waxay kamid tahay waxyaabaha mataqaana ka baxsan waxyaabahan waa maxay ku ciyaaray oo kale qaybta waa maxay afraad waxa la yiraahdaa waa iyagu waxyaabo waxa weeye ka baxsan baa la yiraahdaa ciyaarta oo waa maxay ama qalab yar yar ama waxyaabahan de ubadka inta badan ay haystaan oo kale ama ku ciyaaraan
waxaad rabaa mararka qaar inay noqdaan kuwo waa maxay aan ku ciyaarinba oo ciyaartii waa maxay ka duwan ama ka baxsan markaas waxyaabo waa maxay daawanayo oo kale ama uu eegayo oo kale uu qaadan karo waa maxay dhinaca ciyaarta waa maxay ka duwan marka ayaa loo baahan yahay marka intaas waxay ku kooban tahay qaabka ubadka aynu waa maxay horta markan wuxuu keenayno aynu ugu doorayno iyo waxyaabaha aynu u doorayno maxay marka ay ahaadaan ama maxay marka waa maxay ay noqdaan marka ay ku saraysnaadaan intaan maanta ku soo ururinayna wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam